السلام عليكم دمانتين رمضان مبارك صاحبada sharafta badan maanta waxaan doonayaa inaan sharxo filim taxane ah oo la magac baxay The Unlisted. bilowga filimka arday badan oo dugsiga dhexe ah ayaa ku sii qulqulaya wado maran. Laba qof oo qaangaar ah ayaa si dhow u cirsanaya laakiin waxay ku lumiyeen hareeraha jidka tareenka dhulka hoostiisa mara. Carruurtu waxay ku dhunteen derbi gadaashiisa keligood iyagoo cabsanaya. Meel Australia ka mid ah waxaa ku nool qoys ka kooban 6 qof oo lagu magacaabo qoyska Sharma. Mataanaha Sharma, Drew iyo Carl waa isku mid laakiin gebi ahaanba shakhsiyadoodu waa ay kala duwan tahay. inta badan waxaa lagu kala gartaa mid ayaa ookiyaale xiran midka kalena ma xirna. subaxyada ka mid ah ayaa walaalka weyn Drew ku riyooday qof ilkaha kala baxaya oo uu soo toosay isagoo cabsanaya. Mataanaha ayaa qoslaya isagoo ku qoslaya Drew cabsida aan macquulka ahayn ee uu ka qabo dhaqaatiirta ilkaha. Qoysku waxay ku mashquulsan yihiin u diyaargarowga dabaaldega Diwaaliga. Ayadood waxay u diyaarsay quraac ka hor intaysan u dirin hawlo gaar ah oo la qabanayo dhamaadka maalinta. Dhawaan Drew wuxuu jabsaday xogta dugsigiisa si uu u arko natiijooyinkiisii hore. tani waxay ku keentay dhibaato badan laakiin waalidkii ayaa u ogolaaday inuu isticmaalo kombiyuutarkiisa kadib markii asbuuc la ceyriyay. Carl wuu iska dhigi tiray isagoo og inuu Drew isticmaali jiray telefoonkiisa sidii caadiga ahayd asbuucii la soo dhaafay. Muuqaalka xiga waxay aadeen dugsiga oo ay la kulmeen saaxiibka ay wadaagaan, Chloe. Intay wada hadlayeen fasalkooda oo dhan waxaa loogu yeeray baaris ilkeed oo khasab ah oo ay u xilsaaran tahay barnaamijka hindisaha carruurta ee caalamiga ah. Wiil ay isku fasal ahaayeen oo lagu magacaabo Tim ayaa cararay isagoo ku andacoonaya in waalidkii aysan ogolayn baaritaan. Drew oo ka baqaya fikradda baaritaanka ilkaha ayaa Carl ka codsaday inuu booskiisa galo. Carl wuxuu xirtay muraayadaha Drew oo uu mar labaad galay. Dhaqaatiirtu kama shakin oo waxay ku sameeyeen qalliin isku mid ah 2 jeer. fasalka dhexdiisa macallinkooda Mr. Park ayaa kaga yaabiyay imtixaan kaasoo sidoo kale uu diyaariyay Global Child Initiative Program. wakiilka barnaamijka la sheegay Mrs. Biggs waxay timaadaa fasalka iyadoo ah ilaaliye. dhowr daqiiqo markuu imtixaanku socday ardaydu way wada barafoobeen. Drew waa kan kaliya ee caadiga ah fasalka dhexdiisa kaasoo ku wareersan waxa dhacaya. Mrs. Biggs si kastaba ha ahaatee waxay u muuqataa inay og tahay waxa socda. Waxay ururisaa warbixinta ku saabsan xaaladda ardayda mana dareemin in Drew uu weli dhaqdhaqaaqayo. dhowr ilbiriqsi kadib waxay ku soo noqdeen sidoodii caadiga ahayd waxayna sii wadanayaan imtixaankoodii sidii inaan waxba dhicin. xiisadda kadib Drew wuxuu isku dayay inuu weydiiyo Carl sababta uu u barafoobay laakiin Carl ma garanayo wuxuu ka hadlayo. waxaa intaa raaca dhacdooyin la yaab leh oo ay ka mid yihiin in Carl uu baaskiilka si xawli ah u kaxeeyo isagoo aan is ogeyn oo uu gacmihiisa qaawan ku jabinaya koob dhalo ah. Drew wuxuu si isdaba joog ah isku dayayaa inuu u sheego Carl waxa ka khaldan laakiin Carl wuxuu u maleeyay inuu ku ciyaarayo. dabadeed walaaluhu waxay joogeen banaanka bakhaarka halkaasoo uu Tim u soo cararayo. waa isla ardaygii diiday baaritaanka ilkaha maalintaas. wuxuu u sheegay inaanay cidna aaminin oo ay digtoonaadaan kadibna way carareen. mataanaha ayaa arkay gaari madow oo daba socda Tim waxayna go'aansadeen inay labadooda daba galaan laakiin nasiib daro aakhirkii wuu ka dheereeyay. fiidkii waa dabaaldega Diwaaliga laakiin wiilashu aad ayay uga mashquulsan yihiin inay ku raaxaystaan xafladda. waxay waceen waalidiinta Tim kuwaasoo sidoo kale walaacsan. si lama filaan ah koox rag ah ayaa afduubtay lamaanaha ka hor intaysan khadka ka bixin. walaaluhu waxay ku fikireen inay wacaan booliiska laakiin xusuusnow in Tim uu ka codsaday inaysan cidna aaminin. sidoo kale ma rabaan inay u sheegaan waalidkood sababtoo ah taasi waxay gelinaysaa khatarta ah in la afduubto. kadib waxaan aragnaa ardaydii aan ku aragnay filimka bilowgiisa. waxay sidoo kale ka cararayaan wakiilada barnaamijka. wakiiladu waxay la socdaan dhammaan kaamarooyinka qarsoon ee magaalada si ay u raadiyaan carruurta. maalinta xigta ee dugsiga fasalka mataanaha ayaa la fasaxay si ay u qaataan jimicsi jireed halka ardaydu waxay ku muujinayaan awoodo isboorti oo gaar ah oo aad ugu horumaray da'dooda. marka laga reebo Drew oo u halgamaya siduu ula socon lahaa saaxiibadiisa. Miss Biggs way dareentay arrintan oo way u wacday si ay u baarto. Drew isla markiiba wuxuu booska ku bedelay Carl oo ka dhigay inuu raaco macallimadda. Miss Biggs waxay eegaysaa ciridkiisa cudurdaarka ah inay hubiso cunaha. Carl wuxuu garwaaqsaday in inta lagu jiro baaritaanka ilkaha lagu duray nooc daawo ah oo keenaysa inay isaga iyo kuwa kaleba ay u dhaqmaan si la yaab leh. laakiin maadaama uu Drew ka booday tijaabada waa iska caadi. walaaluhu waxay si qarsoodi ah u isticmaaleen kombiyuutarka macallinkooda waxayna heleen xog ururin ay ka buuxaan diiwaanada ardayda. waxaa ku jira wax walba oo ku saabsan carruurta oo ay ku jiraan meesha ay ku nool yihiin. maadaama Carl lagu duray daawada labada dhinac ee daanka, macluumaadka isaga ku saabsan ee uu ururiyay kombiyuutarka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sida Drew. dhanka kale
Tim waxaa lagu calaamadiyey inuu yahay midka aan liiska ku jirin sababtoo ah weli ma uusan marin nidaamka. Meel kale, kooxda kale ee baxsadka ka ah hay'adda ayaa ka helay taar shaqaynaya gudaha weelka qashinka. Mar haddii aanay telefoonadooda iskula xiriiri karin, waxay go'aansadeen inay isticmaalaan qalabka guriga. Walaalaha sidoo kale waxay helayaan telefoonada raadiyaha si ay isula xiriiraan. Waxay baareen Global Child Initiative Program, waxayna ogaadeen in urur lagu magacaabo Infinity Group uu ka dambeeyo fikradda. Si uu u hubiyo inta uu gaarayo telefoonka, Cal ayaa dibadda u baxaya oo wuxuu arkayaa baabuur horyaal guriga Tim. Wakiilada ayaa arkaya isaga oo waddada ku eryanaya, balse Cal waxaa u suurto gashay inuu baxsado. Inta isaga iyo Duru ku wada hadlayeen telefoonka, waxay heleen mawjada kooxda kale oo ay ka maqleen codadkooda. Waxay isku dayeen inay la xiriiraan kooxda oo ay kasbadaan kalsoonidooda, iyagoo u sheegaya sida ay u ogaadeen barnaamijka. Hogaamiyaha kooxda kale, Rose, ayaa ugu yeedhay inay ku kulmaan maalinta xigta buur. Rose iyo kooxdeeda waxay ka xadayaan weelasha qadada dadka ku sugan beerta. Waxay ogyihiin inaysan ku sii jiri karin muddo dheer xaaladan oo kale, oo ay aad ugu baahan yihiin gargaar dibadda ah. Taas cagsigeed, wiilasha Sharma waxaa si aad ah u quudiya ayaydood. Dugsiga waxay ku ciyaaraan kabadhi, laakiin waxaa la kala geliyey 2 kooxood oo kala duwan. Xoogga cusub ee Cal awgii wuxuu si fudud ula dagaalamayaa kooxda kale, laakiin tani waxay sidoo kale ka dhigaysaa wakiilada inay ka shakiyaan isaga. Duru wuxuu weydiisanayaa inuu guuldaraysto wareegga xiga si aan loo ogaan. Cal si cagujiid ah ayuu u yeelay sidii loo sheegay, laakiin wuu ka carooday khasaaraha ka soo gaaray. Jaajuuska maclimadda oo lagu magacaabo Regan ayaa duubtay isagoo laadaya weelka qashinka oo ka dhigaya inuu u duulo meel dhowr mitir u jirta. Waxay go'aansatay inay tusiso Mrs. Biggs. Dugsiga kadib, walaalaha waxay laaluusheen walaashooda ka weyn si ay u qariso iyaga inta ay ku maqan yihiin inay la kulmaan Rose iyo saaxiibadeed. Markay ugu dambeyntii gaareen goobta, cidna kama helin agagaarka. Si lama filaan ah, qof ayaa madaxa ka geliyey baco isagoo isku dayaya inuu afduubto, laakiin awoodda Cal awgii wuxuu caddeeyey awooddiisa. Waxaa soo baxday inaysan ahayn wakiilka balse ay yihiin Rose iyo saaxiibadeed. Waxay rabeen inay raggaas afduubaan si ay u hubiyaan inaysan la socon kooxda ay isxamaasadeeyaan. Intii halganka lagu jiray, Rose saaxiibkeed Jacob ayaa dhaawac gaaray. Isaga iyo Cal waxay joogaan beerta si ay u hubiyaan in kooxda kale aan la soo dabagelin, halka kuwa kale ay aadeen meeshay ku dhuntaan, halkaasoo Duru uu wax walba ugu sheegay. Kooxdu waxay daaha ka qaadaysaa inaysan sidoo kale marin talaalka ilkaha sababtoo ah xoogaa qas ah ayaa dhacay, waana sababta aysan ugu jirin liiska wakiilada. Ma garanayaan ujeedada dhabta ah ee barnaamijkan, laakiin waxay hubaan in qaar ka mid ah dad awood leh ay isku dayayaan inay xakameeyaan dhalinyarada. Duru wuxuu u sheegay Tim iyo waalidkiis oo la afduubtay, taasoo ka dhigaysa kooxda inay kasii daraan. Duru wuxuu dareemayaa walwalkooda, wuxuuna u xaqiijinayaa in waalidkood ay fiican yihiin inkastoo uusan isagu hubin. Mar kale iyo beerta, Jacob iyo Cal waxay wadaagayaan sambuus, waxayna ka wada hadlayaan kooxaha isboortiga ee ay jecel yihiin. Jacob weli waxaa haya xanuun badan dhaawacii lugta ka soo gaaray awgii, laakiin wuxuu dareemayaa xasilooni markii ugu horeysay tan iyo markii uu dhibkan oo dhan bilowday. Duru iyo Rose waxay yimaadeen saacad kadib, kooxdana waxay kala aadeen wadooyin kala duwan. Maalinta xigta ee fasalka, basaasada macalinka ee Regan ayaa laga dhigay kormeeraha, waxaana loo xilsaaray inay u sheegto wakiilada wax kasta oo shaki ah oo ka dhaca dugsiga. Waxay tusinaysaa Miss Big muuqaalka Cal oo laadaya weelka qashinka, laakiin halkii ay ka yaabi lahayd, Miss Biggs waxay ku farxaysaa siduu xoogga u helay. Ardayda waxaa loo dirayaa inay mar kale qaataan imtixaan jireed, laakiin markan waa la xakamaynayaa iyadoo la isticmaalayo talaalka ilkaha. Miss Biggs waxay ka dhigtaa inay socdaan oo ay u leexleexdaan si gaar ah si ay u hubiso iskudubaridkooda. Duru wuxuu raacaa kuwa kale, wuxuuna ku guulaystay inuu qariyo xaqiiqda ah in aan la xakamaynin. Isla markiiba wax walba sidii hore ayay ku soo noqonayaan. Kuwii la xakamaynayeyna waxba ma xasuusan karaan. Markay ku soo laabteen gurigooda, mataanaha waxaa u yimid Rose. Waxay si degdeg ah ugu yaaceen meesha qarsoon. Waxay arkeen in dhaawaca Jacob uu ka sii darayo. Waxaa hayso qandho caabuqa awgii, kaasoo hubaal ah inuu ka sii dari doono haddii aan si degdeg ah loo daweyn. Si isaga loo caawiyo, Duru iyo Cal waxay aadeen rugta caafimaadka eedadood Maya. Waxay qorsheynayaan inay joojiyaan oo ay xadaan antibiyootik, laakiin way ku fahantay qorshahooda qariibka ah. Markay ogaatay ma haystaan waddo kale ee aan ahayn inay gargaar weydiistaan. Weli waxay keliya u sheegeen ilmaha dhaawacan, way ka qariyaan wax ku saabsan kooxda Infinity. Saddexdooduba waxay yimaadeen goobtii ay ku dhuumaalaysanayeen, balse waxaa soo weeraray Rose iyo kuwa kale. Waxay u malaynayaan in mataanaha ay khiyaameen, laakiin wiilashii ayaa si degdeg ah ugu sharaxay xaaladda. Maya way ka naxday markay aragtay xaaladda ay carruurtu ku nool yihiin. Waxay marka hore daryeelaysaa dhaawaca Jacob ka hor intaysan weydiin carruurta waxa socda. Waxay u xaqiijiyeen inay samaynayaan wax sax ah, laakiin way u diideen inay u sheegaan wax ku saabsan. Markay wiilashii guriga ku soo laabteen, waxay ka walwalsan yihiin eedadood. Waxay u malaynayaan in nolosheeda khatar ku jirto sababtoo ah way caawisay, laakiin markaa waxay ogaadeen iyadoo la hadlaysa wakiilada Infinity Group oo ay fuulayso baabuurkooda. Raggu waxay tuhunsan yihiin inay ka mid tahay iyaga, laakiin waxay hubaan inaysan khatar gelin doonin wiilasha ay eedada u tahay. Muuqaalka soo socda waxaanu ku aragnaa niman soo gelaya hoyga ay ku dhuumaalaysanayaan Rose iyo kooxdu. Si degdeg ah ayay alaabtoodii u xirxidheen oo dibadda ugu yaaceen ka hor inta aan la qaban. Duru waxba kama maqlin iyaga hadalkooda, wuxuu yimid goobta si uu u eego inay roon yihiin.
dhanka kale kaal wuxuu aadayaa dugsiga sidii caadiga ahayd. Duruu wuxuu si qarsoodi ah u galayaa meesha qarsoon wuxuuna arkay cayayaan la dilay oo dhulka yaal. Si kastaba ha ahaatee kooxda meesha kama helin. Shaqaalihii dhismaha ayaa arkay oo eryaday. Wuxuu qiyaasay in kooxdu ay u badan tahay inay bid qabaan oo ay khasab ku noqotay inay dhuuntaan shaqaalaha dartiis. Dugsiga 3 wakiil oo ka socda kooxda Infinity Group ayaa joogay fasalka inta uu casharku socdo. Laakiin wax ka sii yaab badan ayaa dhacay markii tiim uu ku soo laabtay dugsiga sidii isagoo aanay weligii wax dhicin. Wiilashii waxay isku dayeen inay la hadlaan isaga inta lagu jiro fasaxa laakiin wuu diiday sheekadoodii. Dugsiga ka bacdi Duruu wuxuu ku soo noqday guriga oo wuxuu rabaa Kaal inuu ku soo biiro sababtoo ah wakiilada ayaa laga yaabaa inay ogaadaan meesha Kaal uu joogo iyo goobta Duruu inay kala duwan tahay. Laakiin Kaal wuxuu go'aansaday inuu dugsiga sii joogo si uu ugu tababarto kubadda cagta. Inta lagu jiro isdiyaarinta tababaruhu wuxuu ka codsanayaa Kaal inuu waco tiim. Kaal wuxuu u ordayaa gurigiisii oo dibadda uga yeeray. Si kastaba ha ahaatee tiim wuxuu u muuqdaa inuusan waxba ka ogeyn tababarka. Wuxuu ku andacoonayaa in waalidkiis ay ku maqan yihiin safar shaqo sidaa awgeed waa inuu guriga joogo. Ka hor intuusan Kaal weydiin waxa khaldan, wakiil ayaa ka soo wacay guriga dhexdiisa. Dariishada ayay ka soo muuqatay oo ay baartay Kaal iyadoo weydiinaysa halka uu joogo walaalkii. Kaal wuu argagaxay oo wuxuu iska dhigay in Duruu u yeeray kadibna wuu cararay. Laakiin isdhexgalka ayaa saameyn ku yeeshay wakiilka. Kaal wuxuu aaday gurigii oo uu u sheegay Duruu wax walba oo dhacay. Waxay mar kale aadeen meesha ay ku dhuntaan si ay u hubiyaan in Rose iyo kooxdu ay soo noqdeen. Nasiib wanaag waxay ka heleen kooxda banaanka. Waxaa soo baxday inay ku jireen qol qarsoon oo ay ka heleen gudaha qaybta bulaacadaha. Waxay aadeen qolkii la sheegay ee u ekaa in qof hore isticmaali jiray. Ma aha deegaan ku habboon laakiin way ka fiican tahay goobtii hore. Muddo kadib mataanaha ayaa guriga ku soo noqonaya. Kaal si lama filaan ah ayuu u istaagay indhihiisuna buluug ayay noqdeen. Way caddahay in isaga la kontaroolayo laakiin Duruu ma dareemin. Ugu dambeyntii waxay ku soo noqdeen guriga oo waxay la casheeyeen qoyskooda. Maya sidoo kale waxay joogtaa halkaas oo waxay ka walwalsan tahay carruurta. Muuqaalka ugu dambeeya waxay daaha ka qaaday inay shaqo ka heshay kooxda Infinity sarkaal caafimaad ahaan. Mataanaha ayaa isu fiiriyey si wareer leh iyagoo aan hubin inay mar dambe aamini karaan. Muuqaalka halkan ayuu ku eg yahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.